hadday tahay markii kugu horeysay aad channelkeena soo booqato waxaan kaa codsanaa maxay ahayd inaad channelka kusoo biirto kadibna subscribe aad saarto aad gambaleelka furato kadib notificationka aad all ka dhigato si ay kuu soo gaaraan dhammaan casharada aan samayn doono. Hi guys, assalaamu calaykum. Waniga Cabdifatax Ibraahima xaggaad nagala socotana waxa weeye Somaltech. Maanta waxaan ka hadli doonaa cashar yar oo basic ah oo muhiim ah ku saabsan Windowska. wuxuu ka hadli doonaa waxa weeye qaabka aad u bedeli kartid passwordka Windowskaaga ama account-ka isticmaasho passwordkiisa haddii even maxay ahaydey aad ilowdo kale maxay ahaydey old passwordkaaga sidee baad u bedeli karaysaa macnaha marka waxa processkan uu shaqeynaya markaad computerkaaga gudihiisa ku jirtid oo aad istiraahid bedel maxay ahaydey passwordkaaga laakiin aad garan kari wada passwordkaaga marka waxaan ku tusi doonaa laba qaab oo loo sameeyo qaabka loo bedelayo marka maxay ahaydey casharkaas aan isla eegno oo aan bilowno. Okay, sida caadiga marka doonaysid inaad shay aad bedesho maxay ahaydey inta badan waxaad tagtaa maxay ahaydey control panelka. Okay, control panelkan ku dhufano bal inaynu uga bedelmayin kale eegna control panelka. Okay, control panelka ku taxtig doonta xagga aqoonta user accountska oo xaggii accountska waxyaabaan ka bedelinay kadib waxaan ku sii dhufanaya user accountska so waxaan ku dhufanayaa maxay ahaydey manage accountska so waxaan ku dhufanayaa account-kayga aan doonayna manage kaliya waxaan oranayaa change password passwordkana bedeli halka muxuu u baahan yahay inaan geliyo maxay ahaydey current passwordka ama maxay ahaydey old passwordka ma samayn karayo taas inaan maxay ahaydey waxa laga yaabaa old passwordka inaan ilaaway waad ka soo xiri doontaa xaggan right click baad siin doontaa maxay ahaydey Windows desktopka waxaan maraynaa maxay ahaydey ka ugu horeeya ama waxaan eegi doonaa stepka ugu horeeya. Okay, waxaan oranayaa run baan oranayaa run waxay igu qoran sida arkaysa comp mtmt.msc. Okay, marka haddii kugu adkaato maxay ahaydey qorita waxaas way iska digi doontaa xaggan waxaad ka baari doontaa computer management ama let's say xaranaysaa management. Okay, computer management baa ku soo bixi doona xaggaas aad ka arkaysid. Okay, computer management aan ku dhufanayaa. Okay, waxay soo bixi doona computer management aan ku dhufto shayadan bay soo bixi doona waxaan ku dhufanayaa local user and groups kan ku dhufanayaa. Okay, kadib waxaan kusii dhufanayaa userska kadibna userkaan doonaya maxay ahaydey inaan passwordka ka bedelo iyo waxyaabahaas ayaan maxay ahaydey kusii dhufanaya. Okay, so waxaan oranayaa right click baan siinaya waxaan oranayaa set password. Okay, xagga wuxuu sii doonaa warning yar marka warningkaasi waxaas ma baahnid haddii passwordkaaga aad ilowdid waa isticmaal sax oranaysaa proceed. Okay, xagga waxaan gelinayaa passwordka cusub iyo passwordka kale haddaan doonayo no password inaan sameeyo waxaan oranayaa inaan idhaaho okay ayaan siinayaa. Okay, marka wuxuu oranayaa the password has been set. Passwordkii waa la set gareeyay ka oranayaa marka passwordkaaga imika waad bedeshay adigoon isticmaalayn maxay ahaydey passwordkaaga hore gelinin ayaad passwordkaaga aad reset gareysay. Okay, waa stepka koobaad kaas waxaan eegi doonaa stepka labaad xagga waxaan ku qori doonaa cmd command promptka kadibna waxaan run as administrator. Okay, isbaan oranayaa. Okay, run as administrator marka dhaa waxaan qori doonaa commandka soo socda xaggan sida ka arkaysid net user. Okay, net user markaan qoro waxaan qori doonaa password shaygan wax ka bedelayo sanskar ah. sanskar ayaan qori doonaa. Okay, sanskar markaan qoro waxaan siin doonaa password baan siin doonaa let's say 1 2 3 4 5 baan siiyey kadibna enter baan siin doonaa. Okay, xagga igu soo qoray the command completed successfully. Okay, command-kaagii si fiican baa lagu sameeyey marka labadan qaab waxa weeye laba qaab oo fudud videogan waxa weeye very basic ku saabsan casharada Windowskan ka sameeyno marka qofku haddii uuna maxay ahaydey garanin qaab uu sameeyo wuxuu samayn doonaa maxay ahaydey qaabka uu u bedelayo maxay passwordkiisa isagoon isticmaalayn maxay ahaydey old passwordkii marka labadan qaab waa labada step ee ugu fudud aad u samayn karaysid. Okay, haddii Windowska aanu ku shaqeynayo soo login garan karin oo passwordkaaga ilowday markaas soo login gare haddii doonaysid casharka inaan ka sameeyno cashar ka sameeyno fadlan maxay ahaydey comment-ka xagga hoose aan ku ogaano. Okay, marka casharka haddii helpful ku noqday ama uu ku faa'iido noqday waxaan jeclaan lahaa asxaabtada inaad la wadaagto channelka ku soo biirto subscribe saato aad u mahadsantihiin dhammaantiin.